Banaanbaxyada rabshadaha wata ayaa ku sii baahaya dalka Koonfur Afrika ka oo lagu dalbanayo sii deynta madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma kaasi oo xabsi ku jira maalintii shanaad. Dadka careysan arrinkaasi ayaa boob baahsan u geysanaya suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalooyinka Durban oo markii horeba uu ka bilowday boobka iyo Johannesburg waxaana barbar soconaya dab ay qabadsiinayaan meelaha qaar. Afar ka mid ah muwaadiniin Soomaali ah ayaa ku geeriyootay qalalaasaha ka socda dalkaasi halka 8 qof oo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen waxaana dhac loo geystay goobo ganacsi oo Soomaali ay ku leeyihiin halkaas magaalooyinka Durban iyo Johannesburg oo ay qalaasuhu u badan yihiin. Xabsi ayaa soo wajahday ganacsada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waxaana gabi ahaan la xiray goobaha ganacsiga ee ku yaala Pretoria iyo Johannesburg. Cyril Ramaphosa madaxweynaha dalkaasi oo xalay khudbad jeediyay ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay qalaasaha ka socda dalkaasi isagoo ugu baaqay dhammaan dadka reer Koonfur Afrika in ay si wada jir ah ugu shaqeeyaan nabadda wuxuuna intaasi ku daray in ciidanka booliiska iyo militariga ay ka shaqeeyaan in ay dib u soo celiyaan amarka iyo kala dambeynta dalkaasi. Madaxweyne Cyril Ramaphosa wuxuu xusay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay rabshadaha dalkaasi in ka badan 490 qofna xabsiyada loo taxaabay wuxuuna qiray in falalka xasilooni darrada ee ka jirta dalkaasi ay sabab u tahay saboolnimada oo aad u sareysa iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka Koonfur Afrika. Dibadbaxyada iyo boobka ka socda dalkaasi waxay ka bilowdeen usbuucii hore gobolka KwaZulu kadib markii ay maxkamadda xukun ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. Dhinaca kale suxufiyiinta ka kala socday warbaahinta Koonfur Afrika ee kala ah CABC iyo telefishinka News Roma Africa ee soo tabinaya dhacdooyinkan boobka ah ee ka socda dalkaasi ayaa la sheegay in iyaga qudhoodaba laga boobay qalabkii ay wateen. Dalka Koonfur Afrika wuxuu ka mid yahay dalalka dhalinyarada Soomaaliyeed ay u ganacsi tagaan waxaana halkaasi sanad waliba loogu geystaa dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil, dhac iyo boob loo geysanayo hantidooda. Isxaaq Rashiid Maxamuud, VOS TV.